soo dhawaada saaxiibayaal dunida aynu guudkeeda saarannahay waxaa jira qabaa'ilo iyo dawlado kala dhaqan ah hadba muuqaalkeena maanta waxaan idinku soo gudbin doonaa qaababka ay quruxda u yaqaanaan wiilasha ku nool dunida daafaheeda kala duwan haddaba ina keena si aad noola daawataan intayna muuqaalkeena u gudagelin waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka si dhiirigelin noogu noqoto una soo badano muuqaalada noocan oo kale ah mahadsanid muuqaalkeena ugu horeeya wuxuu noqon doonaa kuuriyada koonfureed nimanka ku nool kuuriyada koonfureed waxay leeyihiin dhaqan yaab leh oo ay u yaqaanaan qurux wiilasha walow quruxda qaabka ay u arkaan isaga dhow yihiin Yurubta badi wiilasha waxay qalin ku sameeyaan indhahooda iyo sunniyahooda si ay indhaha ugu ekaadaan dadka reer Yurub maadaama kuuriyada koonfureed ay yihiin dad aad u indho yaryar waxay soo weynaysanayaan balaca indhahooda si ay dadka meeshaasi ugu arkaan quruxda wajigooda waa sida ay iyaga aaminsan yihiin Yaabaan wiilasha ku nool Yaabaan waxa ay quruxda u arkaan inay isku ekeysiyaan gabdhaha sida in ay gabdhaha sida ay timahooda yeelaan ay iyaguna u sameeyaan xitaa labiska gabdhaha ay xirtaan xitaa indhahooda waxay u qurxiyaan sida gabdhaha oo kale sunniyahana waxay marsadaan qalin sunno badanaa mala kala saari karo gabdhahooda iyo wiilashooda hadda shakhsigan kuu muuqdo ma gabar baa mise waa wiil aragtidaada dhanka komendiga noogu reeb badanaa dadka dalkaasi ku nool waxay qaataan dhararka gabdhaha arrinkan waxay ka dhaxleen awoowayaashood xaggoodana ceebka ma ahan waa caado dhaqameed Turkiya waa wadan ku yaala laba qaaradood dhexdooda waxayna wiilashooda badi quruxda u arkaan romantiga iyo hadallada quruxda badan wiilka hadduu hadal qurux badan ku hadli karo waxay aaminsan yihiin in quruxda ugu badanba asiga haysto wiilasha Turkiga waxay badi deystaan timahooda laakiin sida gabdhaha uma deystaan oo waa ay ka gaagaabiyaan gadaal ayayna iska mariyaan waxay aaminsan yihiin midka ka timo jilcan inuu ka qurxoon yahay New Zealand wiilasha New Zealand waxay badi quruxda u arkaan in wajiga la bedelo oo tattoo la marsado dadka halkaasi ku nool waxay quruxda basiyaan midka uu ka kalar fiican yahay xagga tattoo-ga xitaa gabdhahooda waxay wajiga ku dhigsadaan tattoo-gaas oo kalaro badan leh waxay kaloo aaminsan yihiin ninka aan tattoo-ga ku dhigsan wajiga inuusan nin ragba ahayn oo quruxda meesha u oolin Suudaan qabiilada dega bariga dalka Suudaan waxay quruxda u arkaan in qofku aad u dheer yahay sidoo kale waxay leeyihiin dhaqan kale oo ka yaab badan in wiilka quruxdiisu aysan taam noqonin ilaa laga jeexjeexo jirkiisa meel kasta oo ka mid ah khaasatan wajiga dhammaan wiilasha waxaad arkaysaa in wajiyadoodu ay jeexjeexan yihiin wiilka marka uu gaaraba bariga dalka Suudaan 13 sano jir waalidkiisu waxay geeyaan meelaha wiilasha lagu jeexjeexo si quruxdiisa u soo muuqato waa sheeko kale oo yaabkeeda wadata Nigeria qabiilka lagu magacaabo Niger ee ku nool wadanka Nigeria waxay ayagana aaminsan yihiin dhaqan yaab badan oo ku dhow dhaqanka reer Suudaan waxay wiilasha quruxdaba u arkaan in wiilku uu isku rinjiyeeyo wajigiisa oo kalaro badan uu marsado si quruxda u soo muuqato oo ay gabdhahana u xushaan quruxdiisa waxaa waajib ah in kalarka marka uu marsado in wajigiisa ka soo bilaaw meesha lagu sujuudo ee daankiisa ilaa sankiisa laga soo gaaro in uu ku xariiqo hal kalar si quruxdiisa u soo muuqato sidoo kale waxa ay jecel yihiin oo dhaqan ahaan u arkaan in wiilku uu madaxa ka weynaado indhaha sanka iyo afkana uu u weynaado laakiin qaybaha jirkiisa hoose uusan aad u cayilnayn dhaqankan ama quruxda noocan oo kale ah kaliya wiilasha laga marabo xitaa gabdhaha waa ay ku jiraan Ethiopia badanaa dadka dunida ku nool calool weynaantu uma arkaan qurux bilcagsi waxayba u arkaan foolxumo laakiin qabiil yar oo lagu magacaabo Boodiya ee ku nool wadanka Ethiopia waxay quruxdaba u arkaan in caloosha ka soo hormarto
waxay aaminsan yihiin inuusan mas'uul noqon karin qofka ama qurux uusan qabin qofka aan calooshiisa weynayn. Calool weynaantu waxay u arkaan qayb ka mid ah quruxda ragga. Badi waxay juhdi ku bixiyaan si ay calooshooda u weynaan lahayd. Australia. Waddankan Australia waxay aaminsan yihiin in six pack la yeesho ay tahay quruxda ragga. Badi wiilasha waddankan Australia waxay juhdi ku bixiyaan sidii ay u dhisi lahaayeen jirkooda si ay quruxdooda u soo muujiyaan. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkeena maanta. Haddaba waddankee kaa yaabiyey oo quruxdooda aad la yaabtay inta aad daawanaysay muuqaalka? Hana ka ilaawin inaad like saarto muuqaalka. Sidaa iyo nabadgelyo.